sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen waxaa dhacay abaar ba'an sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen qolihii dhammaada dadkii baa dhimanayay wixii dhigla oo kacaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin duqayda iyo maamulka degmada runtii halkan saaka nagu soo dhaweeyay runtii soo dhaweyn aad u qiimo badan sidaa laydin sheegay waxaan u soconnaa maanta xaaladda abaareed ee maanta ka jirta dalka oo ugu sii xoog badan gobolladan bariga inaan soo indhaindhayno oo wixii naga yimidana aan ka daba nimidnay sida dadka u gaadhay inaan ogaano wixii iminka kale sidnana aan insha allah aan gaadhsiin doono maamuladii gobollada iyo guddiyada ku xidhnaa inaan u dhiibin doono insha allah sidaa laydiin sheegay ilaa maanta waxa socdaa labadaa bilood dambaysay gurmud wuxuu ka yimidda uun qaranka soomaalida buu inaga yimiday guddiga anigu aan guddoomiyaha hoyga taakulaynta abaaraha waxaan ku hawlanay 3 bilood dambaysaba kolna xoogan noqoshada yaan soo dirnay dad wareegayo tiimama oo dhulku siduu kala daran yahay u soo ogaada markii labaadna waxaan ku jirnay inaan shirinno hay'adihii kala duwanaa caalamiga ahaa inala shaqaynay iyo dalalkii aan saaxiibada nahay inaan qayladhaanta gaadhsiino markii saddexaadna qaybihii bulshada reer Soomaaliland inaan warka gaadhsiino halkii xaaladdu marayso intaana wixii aan helaynay hantidii lacagtii qaranka ahayd kolba wixii suuragalay ayaan soo dirayno gobollada soo kala diraynay maantana saa la sheegay wixii aan sidno oo runtii intii awal sidii jirnay ka badan wali noqonaysa insha Allah iyadoo la og yahay xaaladdu si saad sheegteen kaliil la galayo waqtiga xaaladdu si Ilaahayna soo furta mooyaane waqtigii bisha Maarch waa bisha awalba iyadoo abaariba jiinta kulli maartay kuleelka badanta Google la sugayo ay kullaan jirtay dareenkana aan qabnayna maartay xaaladdu toddobaadka dambe ka sii darayso darteed wixii kale Ilaahay sabab ka dhigaya u dhimanay hawl dhintay laakiin waxay ballan qaadeenaa inaan biyalaan dambe inaan cid dambe biyalaan nooga dhiman insha Allah annagoo kaashanayna ganacsadeeda iyo ciddii kale aynu asxaabna iyo lacagtii qaran intaba waan soo diyaar garoonay waana haddii xagga raashinada noqotana raashinada qudhoodana insha Allah way ka dabeeman doonaan laakiin maanta waxa uu muhiimsan u soconaynaa aan gaadhsiinayna gobollada waa biyaha aad iyo aad maashinta salaam alaykum haystiga la sugayo waxa dhimanaya hoy dhigaagi ewdib awooda haystiga la sugayo waxa dhimanaya hoy dhigaagi haystiga la sugayo waxa dhimanaya hoy kitaabka Ilaahay inta guddoonsiisaana waad ku mahadsantiin mar labaad oo wax la isku doonsiyo kitaabka Ilaahay iyo sunnada iska qaalisan ma jiro marka hore Ilaahaynu bareenaa waxaan maanta u soo baxnay taas oo madax isku gaarayay waa dhibta maanta taagan soo saartay daawal hawlo kale oo qaran iyo horumarkan ka shaqeynayna maanta waxa u soo baxnay dhibaatada maanta taagan iyo culayska abaarta oo hayso Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa Ilaahayna soo furto dhamaanteenba waxayna waan maanta gacanta ku haynay wax ka tari kara ama culayska inta leeg buuxin kara maaha gacanta Ilaahay habeenkii hogol yar noo daadaba wax walba inaga baqtiinaysa Ilaahay marka hore horta Ilaahay waan barinaa marka koowaad marka labaadna wixii aan hayno waa waxaan u soconno dadkaan u soconaa ka mid yihiin gobolkaana kulli aan ku daafurana insha Allah hay'adani keentay maanta raashinka kan yaalana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama gurmadkii waqtigii loo baahnaa degdeg ahaa
ay ummadooda ugu soo gurmadeen magacooda gurmadaba magacooda gurmada marka ayagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida degdeg ugu soo gurmadeen dadkoodii